بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. كلن كان aad u qiimaha badan oo maanta ay isugu yimaadeen ururka haweenka degmada Gurceel. كلن كان oo awal lagu taageerayo dawladda xaq ah ee ahlu sunna wal jamaa ee lagu dhisay dhuusamareeb mudane Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. waxa lagu diidan yahay oo looga soo horjeedaa dawladda faalsada ah oo gacan ku rumiska ah oo lagu doortay dhuusamareeb maanta oo laga keenay xamar oo lagu soo raad diyaaradda minguurinta ah taas oo aan meel lagu dhaqaya aysan haba yaraatay jirin taasna waa looga soo horjeedaa kulankan. waxaan rabnaa madaxweynaha Soomaaliya inaan fariin ku soo marnaa hawada mudane madaxweyne gobolkan waa gobolkii lagaaga duceeyay doorashadaadina qaybta weyn ka qaatay lagaana soo dhaweeyay arinta maanta faraha inaad la soo gasho dantaa kugu qasbayda sababtoo ay tahay haddii maanta guri dhisan dumo ama qof nool dhinto ama dagaal dhaco dhuusamareeb ka dhaco adiga aab iyo hooyo ay kula taariikhdan ay ku galay daalada ha kalifin mudane madaxweyne qof nool inuu dhinto ha kalifin cadaalad darrada ka socota ha kalifin baarlamaanka jeedka laga soo baxay oo faalsi ah sharaftii la ogaaya lagu soo dhaweeyay dawladda Xasan Cali Khayre marqaatina adaa mudane madaxweyne ka ah waxay ku abaal gudeen mudane madaxweyne waxa lagu soo dhaweeyay gacno furan guriga looga baxay gaadiidkii la siiyay ciidankii la siiyay waxa la waxaan aqli tala leeyna farta ka saarnay anigan kula hadlaayay waxaan idhi Xasan Cali Khayre annagana hana mashquulin adinkuna lagu mashquulinina cadow badan dalku leeyahay hogaanka jiida hore u wad gobolkan Ceelbuur koox xoreynta ka bilow ilaa xamar aan xoreyno ee hore noo wado hogaanka loo qabo wuxuu xal ka dhigay Xasan Cali Khayre inuu inta ilma adeeradiis soo xaabiyo oo dhuusamareeb keeno oo yiraahdo kuwa hadda jooga oo ugu nimidna qabriyan ku duugaynaa hal soo qabto inta hadda anu aan keenay ka tali meesha aqal shaqeynayna ma ahan wariyo waxaan run ayna Soomaaliku ma arsiya u dambeeyda wax riyaa oo la yimid haddii adigu aad la ogtahayna kulligeen waa riyooteen qasaaran ku sugantihiin xaqiiqadii waxaa fiican aqligu ha shaqeeyo mas'uulaad tahay Soomaaliyeed maanta madax u tahay taariikhda qormaysa bari waa tagay waqtiga anaga naga dhamaan maayo adoo ka dhamaana ku xisaabtan haddaad dal rabto oo dad rabto oo dad nool rabto wax tar rabto oo nuxur rabto oo wadaniyad rabto gobolada dhexe maanta badbaadi xaq darrada iyo xaraanta laga maamulaa ka jooji dawladda qorqorna shaqeynay hal warqadna loo saxiixin ma wallahi billahi waa dhaari inaysan dawladda qorqor hal qalin saxiixaynin dadka jawaahir iyo cabdixakiin soo aruurinayaan inta guriyaha ku xiraan ay leeyihiin taageerana gobolkan waxaa runta ay ku sheegayna madaxweyne jaha wareerka waxa ku riday waa dadka kuraastiisa ku fadhiyo oo ay kamid yihiin labada axad oo hadda aan sheegay oo labada axad oo danaystayaasha oo hadda aan sheegay labadan axad aan wargeyn ka siinayna kuraasta ay ku fadhiyaan Gurceel iyo Dhuusamareeb iska leh nasiib darrada ku dhacday ayadoo 4 sano hore waatay Xasan Sheekh nagu adeejiday oo dhibaatadu naga raacdo guriga naga nalka saaro ilmaha naga ay ku leeyahay dambiilo ayadoo ah waa la wada ogyahay ayay haddana waxa soo dhacay nin aan warigiis halgan arag dalkan wax ku darsan oo dibadda ka yimid wuxuu nasiib u yeeshay Cabdixakiin kursi uusan xaq u lahayn oo shaqaysan inuu ku fariisto Cabdixakiin markaad kursi ku fariisatay xaq waxaad ugu leeyahay dadkiina inta u timaadid inaad soo dhex fariisatid aad kala tashatid war agoomaha see u daryeelnaa war cuuryaanka see u daaweynaa war dawladda federaalka inta xaq u leenahay war xaq gobolada dhexe keen aad tira dawladda la xisaabtanto xaquuqda ay ku leeyihiin inaad ka soo goyda xaq u leeyahay inaad dadkii meesha ugu timid mas'uuliyiinta oo madaxda ahaa aad la tashato aad xaq u leeyahay hawadaad ka soo duushay waxaad sheer la noqotay qandaraas aad soo saxiixatay dawladda federaalka xukuumad dhiiban waxna uma haysid kursigana ma laha kursiga dadkii la dadkii aad duugaydo godka aad qodaydo waxaad u dhihin cambaruur way canabi cabaani rabaan waxaad u dhihin xaqiraad iyo xaasidnimo meel ku geeymayda aqal hadaad leedahay waxaad garan lahayd haddii aad dawladdiisa hor kacdo oo aad keentay mas'uulna aad tahay war dawladdu maxay ku qaldan tahay intaan ka daayay ma mudneen war adinkuna fiiri ka daayay dadkii waad soo dhaweydeen dawladdu ma la rabaa dhaxdhaxaas ma noqotid ma dadka kala dab qaadid ma waxay dadka ku soo ku qaldan yahay ka saxdid wariyaa markaa leedahay maxaa idiin sheegnaa maxaa wax ugu sheegay markaa u sheegay ma la tashatay oo timaadi maxaa ka karantiilay dadkaaga wariyaa maxaa cadow kaaga dhigay war kursiga yaal war manina u shiisal lagu dilaa wariyaa nin miya u shiisal lagu dilaa axmaq qaataay dada u shiisal lagu dilaa wariyaa waxaa tahay cunno doon ataa hunuf ataa hunuf iyo kabaqaadka abaa
kaagana waa laga waraabina nabad iyo nolol 8 bilood u hartay cabdi xakiin dibadaad u carare qandaraaskuna kugu filnaama dalkana rijada ma kabalid balana waxaan ka qaadnay inaan nabad iyo nolol iyo adigu adna waxba ka qaadin bikerbi inaan ka qaadin waxaan ka xaal marinaynaa culumadeena ahlu sharafka ahlu xaqa halganka dheer ka timid ee daalan ee la dhibaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahlu xaqaha ayaa la dhibaayay oo lagu soo duulaayay oo mandheer madaxa laga saarayay samra dulqaata annaga idin ka xaal marnay ilaahayna ay abaal iyo khayr siiyo wixii aan noo qabateen annaga idin og markii habeen iyo maalin weerarku nagu socday markii boqol meedkii dhaawaca loo soo dhigaayay wixii xamar u daabulaayay waxa jajaban ka kabaayay waxa agoonteeda waxaynaay waxa asayda ka dhigaayay gabdhaha idinka ay ahaayeen ilaahay abaalkiina ha ka abaal mariyo annaga idin og dumarka idin og waxa in ka ba'ayna malahan annaga aan ka soo arayna insha Allah bismillaah baari wiilasha dabka iyo qoriga sidoo habarkii loo isku diraayo waxaad ogaataan gurigiina dab ha ku ridinina ha ku dhufanina xabad ha isqasaarinina waa dhamaanay midaan waa siyaasad annaga ay soo harayna insha Allah ilaahay idankiisa lacagta yarta mushaarka xaqan ugu leenay dawladda federaalka malaha waa lacagta caalamku keena iyo lacagta cashuurta degdega airport ma ilaha ayagu yay iska dhigin dad wax noo qabtay wixii anagu aan leeyahay haysta 3 sano waxaan leeyahay ayaga haysta farmaajiyo qayr haysta laakiin adduunyo aakhiro wal wal xisaabtin doona insha Allah taala waxaan rabnaa inaan u sheegno culmadeena raalli ahaada boqolkiiba ku goor raalli ahaada dadka cayayaanka wax magaratada cunadoonka qandaraaslayaasha sida Jawaahir Cabdi Xakiin oo kale oo cuno day Jawaahir waa naagtiga fiiri waa naagtii dambashadii soo heemiday inta galaaska soo heemiday ninka Cabdiraxmaan Odowaa oo shal u heeminayay dhuusamareeb ku cuntay sida bahalkii nacnacna waa wax aan waxba garan waay kursiga waa aad ka dagayaan yurtay waa aad ka dagay kursiga naaya asna waa uu ka dagay shaydaanka Cabdi Xakiin waa uu ka dagay balan iyo ahli wallahi soo waadaan wallahi waxaan qaadnaa meesha meel guri dambe ay joogay kursi ay joogay iyo nolol dambe inaan na arkin hadii ilaahay idin weeyahay